nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo waliba inta ku hadasha afkayga hooyo Soomaaliga. Intaanan hore u sii gudagalin qodobkaan raba inaan maanta ka hadlo, tani waa Gold Weekly Analyze, ka faa'iideysi wacan u wanaagsan. Waxaa jira dhowr arrimood oo xasaasi ah loo baahan yahay qof walba oo suuqan ku cusub inuu ka feejignaado. dhowrkii toddobaad ee ugu dambeysay waxaa jiray cabashooyin aad u fara badan ee igaga imaanayay ardayda ku cusub suuqan iyo waliba inta ku dhiban suuqan, taasoo ay ka fursan weyday noqotayna lagama maarmaan in aan ka hadlo. waxaa soo batay tuugo ama scammers kuwaasoo waagii hore jiri jiray balse hadda soo batay, taasoo loo baahan yahay ardayga suuqa ku cusub iyo waliba midkii hore ugu jiri jiray in uu feejignaan dheeri ah muujiyo. waxayna ku soo farabateen aaladaha social media, khaasatan TikTok. inta ila socotay iyo inta aanan ila soconba aaladan TikTok waxaan dhalinyarta ku dhiirigelin jiray muddo 2 sano ah. dad badanna waxaan ku caawiyay in ay dakhli buuran ka sameeyaan suuqan aadka u baaxadda leh. 3 siyaabood ayay dadka scammerska ah ee suuqan ku jira dadka ku gaadaan. Number 1, waxaan ku qabanayaa account management. Number 2, waxaan ku gudbinayaa account challenge waxaadna dhiibtaa khidmadda gudbinta. Number 3, waxaan ku barayaa suuqa. ardayga miskiinka ahna wax la barayaa haba yaraatee ma jirto.